بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن halkani waa telefishinka Universal ku soo dhawaada qodobada warka caalamka ugu waaweyn xilligan oo kala had ka daawataan TV-ga Universal akhbaraadka daawadoontaana waxa kamid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta magaalada Muqdisho si rasmi ah uga daafuray shir looga hadlayo doorka culimada ay ku leeyihiin geedi socodka arrimaha amniga iyo dib u heshiisiinta dalka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo doorkii cishay la soo dhaafay safar socdaal shaqa ku joogay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa maanta dib ugu laabtay oo si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya oo dhawaan xilkaasi loo soo magacaabay ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilkaasi guddiga nabadgelyada Jubbaland ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Kismaayo waxay ka soo saareen qodobo lagu xadidayo amniga deegaanada Jubbooyinka inta lagu guda jiro fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan ay fowdana ku soo haysa akhbaraadka caalamka waa daawadoontaana waxa kamid ah in ka badan 200 qof ayaa ku geeriyooday wadanka Sri Lanka kadib markii weeraro isxigxiga lagu qaaday hoteelo iyo kaniisado ku yaala dalka Sri Lanka intaas waxay hayeen qodobada warka caalamka ugu waaweyn goordhow waxa daawadoontaan iyagoo faahfaahsan shir soconaya muddo 3 cisho oo ay ka qayb galayaan culimada Soomaaliyeed ee isaga kala timid gudaha dalka iyo daafaca caalamka ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho waxaana shirka looga hadlayaa doorka ay culimada ku leeyihiin geedi socodka nabadgelyada iyo arrimaha dib u heshiisiinta iyadoo madaxweyne Farmaajo uu shirkaasi si rasmi ah u daafuray wariyaha Xamse Cilmi Axmed ayaa warkan faahfaahinaya muhiimadda shirkan ayaa waxa uu yahay mid looga hadlayo kaalinta ay culimada Soomaaliyeed ee caalamka ku nool ay ku leeyihiin geedi socodka arrimaha amniga iyo dib u heshiisiinta dalka shirkan ayaa 3 cisho ee inagu soo aadan waxa uu ka socon doonaa magaalada Muqdisho waxaana xubnaha furitaanka shirkan ka qayb galaya kamid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka wasiirro ka tirsan xukuumadda iyo culimaadudiinka isaga kala yimid daafaha caalamka kuwaas oo shirka ka qayb gali doona nuxurka qodobada ugu waaweyn ee shirka uu ku wareegi doono ayaa waxa kamid ah kaalinta ay culimadu ku leeyihiin dhexdhexaadinta iyo ka hortagga fikirka xagjirnimada ah iyo astaamaha dawlad wanaagga qaar kamid ah culimada ka timid dalka dibadiisa ee shirka lagu marti qaaday ayaa hoga tusaaleyn dhaba ka bixinaya kaalinta ay shirka ku leeyihiin aniga culimada dibadda ka timid ayaan ahay waxa isoo waday qaraxan usbuuc kasto magaaladii aan jecleynay magaalo madaxda ka dhacayo oo hooyada wax gadanayso hilbaheeda la gurayo oo la caadaystay kuwa caadaystay oo diin ka dhigteen waa ogahay dhowr jeer ayaa halkan madaxweynaha sharafta leh uu ballanqaad sameeyay in nimankaasi la iska qabto wixii aan ka qaban lahayn nimankaasi inaan qayb ka noqdo culimadan ay qayb ka noqdaan si wada jir ah maxaan u baahanahay marka amni nabad iyo nolol wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda Soomaaliya Sheekh Nuur Maxamed ayaa dhankiisa bayaamin ka bixiyay shirka maanta furmay iyadoo ujeedadiisa ay tahay wada tashi xog isdhaafsi ku aadan sidii ay xukuumadda iyo culimada Soomaaliyeed ugu wada shaqeyn lahaayeen arrimaha ammaanka iyo dib u heshiisiinta dalka sidaad mudane madaxweyne ee mudanayaal sidaad ogtihiin kulankan waa kii ugu horeeyay ay si wada jir ah isugu yimaadaan xukuumadda iyo culimada sida loogu wada tashto sidii ay xukuumadda iyo culimada Soomaaliyeed ugu wada shaqeyn lahaayeen xaqiijinta amniga iyo dib u heshiisiinta bulshada arrimahaas oo lafdhabar u ah mudane madaxweyne nolosha bulshada horumarka dalka si toos ah u taabanaya nolosha dadweynaha isla markaasina kamid ah arrimaha xukuumadda iyo dawladda mudnaanta koowaad ay siinayso madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in culimadu ay door muuqda ku leeyihiin sidii ay dhalinta uga dhaadhicin lahaayeen fikirka xagjirnimada waxaana uu sheegay in dhalinta fikirkaasi aaminsan ay dalka dhibaato weyn ku hayaan xaqiiqatan shirweynaha maanta dawladda iyo culimadu ay goobjoog ka yihiin ay soo wada qabanqaabiyeen ay ka wada shaqeeyeen macnaheedu waxay tahay in la gaaray waqtigii culimada Soomaaliyeed ay qaadan lahaayeen kaalintoodii sax ahayd iyagoo midaysan waa ku faraxsanahay inaan arko maanta culimadeennii oo midaysan iyo dawladdoodii oo wada shaqeyn toos leh
mawduuca laga hadlayo saddex bil soo socotana ay tahay culimada Soomaaliyeed iyo dawladdu inay lahaadaan wada shaqayn ay ka wada shaqeeyaan arrimaha amniga arrimaha dib u heshiisiinta tan labaad in aan ka hadalno maxaan ku yiraahdaa xagjirnimada iyo sidii looga hortagi lahaa ama sidii loola dagaali lahaa xaqiiqatan xagjirnimadu annagu waxay noo geysatay dhibaatooyin aad u waaweyn ay ugu horeyso inay la dagaalamaan xagjirka oo annagu aan dhahno argagixisada dowladnimadana inay la dagaalaan ay cadow ku yihiin inay cadow ku yihiin shacabkeenna iyo dadkeenna ay cadow ku yihiin inay cadow ku yihiin diinteenna suuban ay cadow ku yihiin inay cadow ku yihiin quruxdii iyo sharafkii dalkeenna uu lahaan jiray ay cadow ku yihiin sidaas darteed waxaa weeye in culummadu Soomaaliyeed oo midaysan ay saddex biro soo socota ay uga hadlaan sidii loo cadowgaas ummadda Soomaaliyeed looga qaban lahaa iyo wada shaqayn buuxda culummada Soomaaliyeed iyo dawladdu ay u lahaan lahaayeen xamse cilmi telefishinka caalamiga ah ee Universal Muqdisho magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland waxaa maanta si weyn lagu soo dhaweeyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi hogaaminayo kuwaas oo dhowrkii cishe la soo dhaafay ku sugnaa dalka Isutaga Imaaraadka Carabta iyadoo mas'uuliyiinta Imaaraadka Carabtana ay kula kulmeen gudaha dalka Isutaga muddadii halkaas ay ku sugnaayeen bariyahayaga Ciidruus Cabdullaahi Beershi ayaa warkan ka soo diray Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu dib ugu soo laabtay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland kadib safar muddo 2 maalmood ah ugu maqnaa dalka Isutaga Imaaraadka Carabta madaxweynaha ayaa waxa uu helinayay xubno ka tirsan golihiisa wasiirada waxaana markii ay ka soo degeen madaarka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan golaha wasiirada mas'uuliyiin ka socday asxaabta siyaasadda gaar ahaan kuwa mucaaradka iyo mas'uuliyiin kale ugu horeyna Yaasiin Xaaji Maxamuud Xeer Faratoon wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland oo wafdiga kamid ahaa ayaa waxa uu ka warbixiyay safarkii madaxweynaha iyo kulamadii ay la soo qaateen mas'uuliyiinta Isutaga Imaaraadka Carabta hadii aan maanta idin dulmaro arrimaha ugu muhiimsan ee laga wada hadlay markii aan dalka tagnay waxa kamid ah oo aan ugu horeysiinayaa waxa aad looga wada hadlay iskaashi xagga nabadgelyada sida aad ogtihiin mandaqada waxa aad ugu soo xoogeysanaya nimankan la yaa argagixisada oo meelo badan ku sugan si arintaas looga hortago oo la iska kaashado ayaa ahaa qodobada kamid ah qodobada ugu waaweyn in jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalka Imaaraadka Carabtu ay si wada jir ah u sameeyaan hay'ad dhoofisa xoolaha reer Soomaaliland oo iyadu markaa qaada oo markaa u sii gudbisa caalamka intiisa kale arrimaha kale muhiimka ah ee arinta dhaqaalaha la xidhiidha ee laga wada hadlay waxa kamid ah airportkii Berbera ee aad maqlayseen inuu markii hore kamid ahaa qayb kamid ah maxay too saldhiga ama halka Imaaraadka Carabtu ay ka samaysanayaan waxa la isla gartay in airportkaas uu noqdo mid diyaaradaha rayidka iyo kuwa ganacsiga ay ku degi karaan oo ka shaqeysan karaan oo ku degi karaan ee aan ku koobnaan doonin ama intiisa badan looba isticmaali doonin saldhig military qodobada kale aad looga wada hadlay muhiimka ahaa waxa kamid ah sidii Soomaaliland bankeeda dhexe ama central bank waxa la yiraahdo loo xoojin lahaa dal kasta dhaqaalihiisa qayb weyn buu ka yahay banka ayaa dalka haya maxay to maaliyadiisa isaga xukuumadda qorsheeya wax badan buu ka tagi karaa central bank haddii uu dhaqaale haysto ganacsatada yaryar iyo ganacsatada waaweyn iyo hawlaha kale faraha badan ee horumarka ayuu maalgeliyaa waxa maahiya siiya soo dejiya lacagta wuxuu ilaaliyaa maxay to qiimaheeda ayuu ilaaliyaa arinta bankeenu sidii awoodii loo siin lahaa iyo kartidii oo hawlaha ku gudan lahaana
waa arrimaha laga soo wada hadlay oo la isla soo afkartay. wasiirka Ogeesta kala su'aalan ka weydiiyay cidda gacanta ku hayn doonta iyadoo sheegay inay si wada jir ah u sameyn doonaan dawladaha Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabta oo dhoofin doonta xoolaha cidda maamuli doonta waxa uu ku jawaabay hay-adda si wada jir ah loo sameynayaa baan ku leeyahay dabcan maamulkeeda iyo taladeeda iyo siyaasadeeda waxba waa la wada hogaaminayaa sharci loo sameeyo la isla ogol yahay oo heshiis oo la galay ayaa loo daalan anagu tafaasiisha waa mid imka la develop garanayo la wada sameynayo. waa Idris Bershiya telefishinka Universal Hargeysa. guddoomiyihii hore ee banka dhexe ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah xilkaasi u baneeyay kadib markii mas'uulka cusub ee dhawaan loo soo magacaabay guddoomiyaha banka dhexe ee dalka uu maanta la wareegay xilkaasi. wariyahayaga Cabdicasiis Ibrahim Axmed Oke ayaa warkan noo faahfaahinaya. gudoomiyaha cusub ee bankiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa si rasmi ah xilka ula wareegay gudoomiyaha waxaa 8 bishan Abriil lagu magacaabay shirkii golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya. xafladda xil wareejinta oo lagu qabtay gudaha bankiga dhexe ee Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka maaliyadda, hantidhowrka guud ee qaranka, gudoomiyihii hore ee bankiga dhexe iyo gudoomiyaha bankiga dhexe. Bashiir Ciise Cali gudoomiyihii hore ee bankiga dhexe ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah xilkaasi ugu wareejiyay gudoomiyaha cusub ee bankiga dhexe Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi. Bashiir Ciise Cali gudoomiyihii hore ee bankiga dhexe ayaa sheegay in bankiga uu 10 sano ay u dambeysay uu horumar sameeyay, waxaana uu sheegay in gudoomiyaha xilka uu ku wareejinayo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi uu yahay nin aqoon durugsan u leh howlaha bankiga, waxaana uu ka dhawaajiyay in saaxiib dhow uu la ahaa bankiga dhexe. maanta waxaan ku soo dhaweynaynaa halkan gudoomiyaha cusub Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo ahaa markii hore nin aagan dhaqaalaha iyo waxa si fiican ugu dhex jiray. waa nin meel cusub aan imaanay meeshii awalba uu ku dhex jiray shaqadiisa la xiriirtay iyo waqti aagii uu yimi aan ku soo dhaweynayno. bankigu hadda wuxuu jiray 10 sano buu jiray tan iyo markii dib loo furay. 10kaasna hawl badan buu qabtay, shaqo badan buu qabtay, natiijooyin wanaagsan buu keenay xagga ammaanada dadka, xagga awoodda iyo moogta hawl qabadka, xagga waxa lagu aaminay oo lacagta uu hayay iyo waxaas oo la oran karo moogtahay weligeed lacag iyo dhaqaale aan bankiga soo gelin ama aan loo dhiiban buu maanta u hayaa bankigu gudaha iyo dibadba xiriir buu ku leeyahay. gudoomiye ku-xigeenka bankiga dhexe ee Soomaaliya Marwa Maryan Cabdullaahi Yuusuf ayaa gudoomiyaha cusub ee bankiga dhexe ku soo dhaweysay shaqaalaha iyo xafiisyada bankiga dhexe. dad diyaarsan weeye, dad shaqadooda yaqaan weeye, dad maxaa la yiraahdaa la soo tababaro waaye, dad aqoon fiican u leh shaqada bankiga waa lagu soo dhaweynayaa. waana ku faraxsanahay inaad noo timaado adiga oo ah qof aan naqaano oo ay shaqana dhex martay. waxaan ognahay aan ku kalsoonahay bacdama aad bankiga xataa si dadban aad calaaqaad ula leedahay oo maxaa la yiraahdaa aan dadaad adigu aad isu dhowdihiin aan isla shaqayn jirnay. maxaa la yiraahdaa waxay ku leeyihiin soo dhawow. gudoomiyaha cusub ee bankiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo la hadlay shaqaalaha bankiga dhexe ayaa sheegay in shaqaalaha ay u sinaan doonaan isla markaana uu cadaalad fali doono shaqada iyo shaqaalaha, isagoona tilmaamay waxyaabaha uu ka qaban doono bankiga dhexe. maanta xil baa ay fuulay culus kaasoo ka bilaabmaya marka hore inaan wixii la soo qabtay ilaaliyo. bankiga meel wanaagsan buu marayaa, shaqaada badan baa laga soo qabtay 10 sano. annagana dhankayaga waxaad ka filanaysaan in aanu taas idinkala shaqayno, inaanu sii wanaajino. hoggaan ahaan waxaan idinka ballan qaadayaa inaan noqdo hoggaan shaqo focuskiisu yahay ama ahmiyadda koowaad in wixii la soo qabtay wax lagu daro. in qof kastoo idinka midana aan u sinaado ama ay ii sinaadaan, dadkuna aan ku qiimeeyo shaqada ay la yimaadaan. Cabdicasiis Ibrahim Axmed Oke, TV Universal, magaalada Muqdisho. haddii aanu eegno magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland waxaa maanta shir jiraayad ku qabtay gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliland isagoo kaga warramay sarifka lacagta dollarka Mareykanka iyo shilinka Soomaaliland oo maalmihii la soo dhaafay hoos u dhac weyn laga dareemayay. hase yeeshee warkaasi goordhow ayaan idiin soo gudbin doonaa hadduu April ka noqdo.
waxaa isa soo taraya tirada dadka ku dhintay weeraradii lagu qaaday kiniisadaha iyo hoteelada ku yaala wadanka Sri Lanka iyadoo wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya dalka Sri Lanka ay sheegayaan in ka badan 200 qof inay ku geeriyoodeen weerarada ka dhacay dalka Sri Lanka waxaana lagu soo waramayaa in ay si aad ah u soo kordheen tirada dadka ku dhaawacmay weeraradaasi. Briyayaga Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhige oo ku sugan stuudiyaha telefishinka Universal ee magaalada London ayaa warbixintan inoo soo diyaariyay. inay dhintaan dad ka badan ilaa iyo 200 dalka Sri Lanka waxay ka dambeysay markii axadii aroortii hore weerarro xoog leh ay dhaceen iyo weliba isqarxin ka dhacday kaniisado waaweyn iyo weliba hoteelo dadku ay aad u deganayeen. ciidamada ammaanka ee wadanka Sri Lanka waxa ay sheegeen qaraxyada kala duwan in isku mar la bilaabay iyadoo ay u arkaan inay tahay arrin la soo maleegay oo muddo la qorsheynayay. dadka dhintay oo tiradooda ay kordhayso ayaa waxaa weheliya dhaawaca oo gaaraya ilaa iyo 500 ku dhowaad kuwaasi oo ay dhaawacyadu ka gaareen qaraxyada iyo weliba meelaha qaar ismidaaminta ka dhacday. waxa ay sheegeen wasaaradda gaashaandhigga ee wadankaasi Sri Lanka ninka mas-uulka ka ahi in dadka looga digayo inay dibadda u soo baxaan oo isdejiyaan islamarkaasina loo arko inay arrintan hal koox ay ka dambayso. lama magac dhabin guud ahaanba laysku maraacin cidda loo arkayo inay ka dambayso laakiin waxaa loo arkay inay tahay dhiilo lagu soo beegay xilliga ciidda Easterka ee dadka Kiristaanka ah ee dalka Sri Lanka ku sugnaa kuwaas oo isugu jira reer Sri Lanka iyo dadka kale adduunyada qaybaheeda kale ka yimid. wararku waxay sheegeen in iyadoo aroornimadii aad loo joogo dhinaca hoteelada islamarkaasina la quraacanayay ay arrimahani ku soo beegmeen. kaniisadaha waaweyn ee la qarxiyey ayaa waxay yihiin kuwo ku kala yaala dhowr meelood haba ugu weynaadaan kuwa ku yaala magaalada Colombo oo ah xarunta wadanka Sri Lanka. madaxweynaha wadankaasi ayaa tacsi u diray guud ahaanba dadka ay dhibaatadu soo gaartay eheladooda iyadoo shir degdegana uu gudoomiyey ra'iisul wasaaraha dalka Sri Lanka isagoo ku tilmaamay falkan inuu yahay falkii ugu xumaatan iyo intii la joojiyey ama meesha laga saaray dagaalkii Tamilku ay kula jireen xukuumadaha kala duwan ee dalkaasi 26 sano oo la soo afjaray 2009. wixii markaa ka dambeeyay qulqulatooyin kama jirin dalka Sri Lanka laakiin haddana mararka qaar ayaa rabshado googoos ay jireen iyadoo dadka badan ama ugu badan wadankaasi Sri Lanka ee Sinhalese lagu magacaabo ay ahaayeen kuwo gubay dhowr masaajid iyo weliba guryo dadka muslimiinta ay leeyihiin. taasina aqritaanka ay keentay dowladda Sri Lanka inay go'aan kama dambaysa ka gaarto inay xukun degdeg soo rogto bishii Maarch 2018. haddaba adduunyadu siyaabo kala duwan ayay u aragtay oo ay uga hadashay arrinkan laakiin waxay ka sinaayeen inay tahay fal argagixiso oo dhibaato xoog la geystay dad badana nafsiyeejiya dad badana dhaawacyo kala duwan u geystay. wararku waxay sheegeen dadka ajnabiga ah iyo dadka kaleba inaan weli haybtooda iyo magacyadooda si buuxda aan loo hayn maadaama dhiiladu isku mar ay dhacday oo ilaa 10 qarax ku dhowaad ay dhaceen. laakiinse ninka isagu safiirka Ingiriiska uga ah magaalada Colombo ee dalka Sri Lanka oo lagu magacaabo James Dowris ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan dad u dhashay Britain oo iyagu dhibaatadu ay qabsatay laakiin aan faahfaahin dheeraada weli la bixin karin oo baaritaan lagu jiro. wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Netherlands oo lagu magacaabo Steve Blok ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo haatan ruux Dutch ah amaba Hollandees ah uu ka mid yahay dadka iyagu halkaa ku nafwaayay. waxaa kaloo wararku ay sheegayaan 2 u dhalatay dalka Turkiga inay iyaguna ka mid ahaayeen dadka qaraxyada kala duwan ee Sri Lanka ku dhintay. waxaa ka tacsiyeeyay madax badan oo dunida ka tirsan oo ay ka mid tahay ra'iisul wasaaradda Britain Theresa May taasoo sheegtay inay yihiin falal argagixiso ah iyadoo u tacsiyeynaysa guud ahaanba dadkii dhibaatada ay soo gaartay. ninka ugu sarreeya diinta Kiristaanka Pope Francis ayaa isaguna waxa uu ku tilmaamay in uu marka hore cambaareynayo fal argagixisana ay tahay in dad Easterkii gudanaya la dhibaateeyo iyagoo haba yaraatay waxba aan galabsan. madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald J Trump ayaa isaguna bartiisa Twitterka waxa uu ku cambaareeyay falkaasi oo ku tilmaamay argagixiso inay weerar ku qaaday kaniisado iyo hoteelo waaweyn oo ku yaala wadankaasi Sri Lanka. marka daba la isku soo xooriyo arrintan wadankaasi Sri Lanka diyaar uma ahayn dhiilada noocan inay ka dhici doonto wax laga ogaana ma jirin. waxaana dhib ugu dambeeyay Sri Lanka 2009 markii la soo afjaray dadka Tamil Tigerska oo dadka laga tira badan yahay oo 26 sanadood iyagu dagaal waday si ay uga go'aan dalka Sri Lanka laakiin aanay u suurtoobin iyadoo dagaalada 26 sane ee Tamilku kula jireen dalka Sri Lanka ee maanta dhibaatadu ka dhacdana ay ku naf waayeen dad gaaraya 80,000 oo ruux.
wasiirka arrimaha islaamka iyo dhaqanka dalka Jabuuti oo maalmihii la soo dhaafay safaro ku marayay gobollo ka tirsan dalka Jabuuti ayaa safarkiisa waxa uu ku soo gabagabeeyay gobolka lagu magacaabo Tajoorah oo ku yaala waqooyiga dalkaasi Jabuuti. Axmed Cabdikariin Macallim ayaa warkan ka soo diray Jabuuti. wasiirka arrimaha islaamka ee dhaqanka awqaafta Muumin Xasan Barre ayaa markii uu gaaray gobolkaasi Tajoorah waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta gobolka oo hogaaminayo gudoomiyaha gobolkaasi Cabdimaalig Maxamed odayaasha iyo waxgaradka deegaankaasi. wasiir Muumin Xasan Barre ayaa safarkiisa waxaa ku weliyay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan wasaaraddiisa oo uu ka mid yahay agaasimaha waqfiga, agaasimaha diiwaanu sakaad iyo agaasimaha dhaqanka. wasiirka ayaa kulan la qaatay dadka deegaankaasi iyo mas'uuliyiinta waxaana kulankaasi kaga warbixiyay siyaasadda dawladda ee ku aadan laguna taageeri lahaa dadka taagta daran iyo caruuraha agoonta ah. wasiir Muumin Xasan Barre iyo mas'uuliyiintii la socday ayaa kulankaasi ku qaybiyay lacagaha sakooyinka ah ee ay soo gaarsiiyeen gobolkaasi Tajoorah kaasi oo ahaa mid lagu bixinayay lacagaha sakooyinka ah ee sanadkan ay soo ururisay laanta Jabuuti u qaabilsan sakooyinka ee diiwaanu sakaad. wasiirka oo ka hadlaya arrimahaasi ayaa yiri horta waxaan u soconaa wasaaraddu waa arrimaha islaamka iyo dhaqanka iyo waqfiga. waxaan ku bilaabaynaa arrimaha islaamka oo aad u muhiima waxa weeyin wax ilaahayna faray baa jirto waajib nagu ah wasaaraddeedu waa zakadii iyo agoontii oo la kafaalatul aytaam. marka zakadii iyo kafaalatul aytaam waa sidnaa ilaahay baa soo waajibiyey oo waxa weeyaan dadkii karayay baa laga qaadaa kuwii mutaystana waa la siiyaa waa 8 sanfi wey. had iyo jeer waxaan ka soo lahaa kolkaa reejiyaasha maraynay caasimadda uun inay bixiso maahina dadka reejiyoguna waa inay bixiyaan. Tajoorah waxaan ku ammaanayaa waan ku ammaanayaa mid kalena waan ku boorinayaa bas waan ku dhiirigelinayaa. mid waan ku ammaanayaayo waxaa jira nin walaalkeena oo mataqaanaa komersaha ka mid ah oo bixiya zakada oo Tajoorah oo Xaaji Ibraahim baa jira. waan ku ammaanaynaa waxaan leenahay kuwa kalena ha ku daydaan oo ha bixiyaan laanna markaan bixino dad badan oo u baahan baa la siin doonaa insha Allah taala. dhinaca kale wasiirka arrimaha islaamka iyo dhaqanka awqaafta Muumin Xasan Barre ayaa gudoomiyay kulan looga hadlayo horumarinta dhaqanka. kulankaasi oo soo diyaarisay wasaaraddiisu ayaa wasiirku waxa uu kaga warbixiyay mas'uuliyiintii iyo waxgaradkii ka qayb galay siyaasadda dawladda ee ku aadan horumarinta dhaqanka. waxaana wasiirku faahfaahin ka bixiyay doorka dawladda ee lagu horumarinayo dhaqanka qaybihiisa kala duwan. wasiirka oo arrimahaas ka hadlaya ayaa yiri halkan aan ku jirno waxaan ka soo bilownay dakhil baan ka bilownay. dakhil waxaan uga bilownay waa meesha labadii umadood degan yihiin waa magaaladii midnimada waa run laakiin waxaa la yidhahdaa khitaamuhu misk waxay ka dhigan tahay waxaa ugu fiican meesha lagu dhammeeyo. waxaan dooranay bilcaani oo nagu talagalay annaga ugu talagalay inaan Tajoorah ku dambayno leanno maanta waxaan muhiimkeen u soconay waxa weeyaan dhaqan baan u soconnaa. dhaqankeena Jabuuti haddaan nahay waxaa ugu horreysay waa Tajoorah weeyaan laakiin laba shay baan u soconnaa. midda ugu horreysay waxa weeyaan waa siyaasaddii waddanka lagu maamulayay dhaqanka waa in waxaa loo yaqaano politique culturelle nationale in loo sameeyo waddanka. ta kalena waxa weeye inaan samayno inventaire aan samayno politique culturelle immatérielle wax la taasoo muhiim ay tahay in la diiwaan geliyo wixii dhaqan u leedahay ha noqoto dhaqanka aan la taaban karin waxaa ka mid ah majliska oo kale iyo suldaanaadu wax la taaban karo maaha waa dhaqan aan leenahay dadku ay ka soo dhaxleen dadkii hore anaa ku dhaqan gabay hadday tahay buraanbur hadday tahay oo wax muhiima wey. waxaa kaloo muhiima waxaan dhaqano ama guuraana baan leenahay patrimoine aad iyo aad u muhiima. waxaa ka mid ah dhulka waxaa lagu qoro gravity pesterka loo yaqaano alburma waad garanaysiin baan u malayn tegooni ceela waad garanaysiin baan u malayn. saa daraaddeed waxaan leenahay dhaqankeena waa inaan ku fara adayno waa inaan ilaashano dadka soo socda waa inaan barno. dhulkii la dhigayna waa loo diyaariyeyo musée national yaa la diyaariyey oo waxa weeyaan halkii uu ka soo bilaabo taariikhda waddankeena oo ahayd la gaarka ahayd laga samayn doono iyo bibliothèque nationale oo intellectsna waa la dhisay. wasiir Muumin Xasan Barre wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta ayaa safarkii uu ku marayo gobollada kala duwan ee waddanka Jabuuti ayaa waxa uu ku soo gabagabeeyay socdaalkiisaasi gobolka Tajoorah ee waqooyiga waddanka Jabuuti. Axmed Cabdikariin Maxamed, Universal TV.
abaar xoogan oo dadka iyo dunyada saameyn lixaad leh ku yeelatay ayaa laga soo sheegayaa inta badan inay ka jiraan qaar ka mid a gobolada dalka iyadoo webiga Shabeellana uu ka mid yahay webiyada mara dalka Soomaaliya uu biyo yareeyay goobaha uu ka mara dalkana laga soo sheegayo in xaalada abaareed ay ka jiraan gobolada dhexe haddii aynu eegno deegaanada Galmudug abaartaasi ayaa mas'uuliyiin ka tirsan Galmudug waxay wadaan dadaalo ay ku doonayaan sidii ay ku samata bixin lahaayeen dadka ay saameynta lixaad leh ku yeelatay abaartaasi maxamuud oo aadan ayaa warbixintan ka soo diray Cadaado waxaa isi soo taraya qayladhaanta iyo cabashada ka imaanaysa dadka reer guuraaga maadaama sanad kasta xilligan oo kaleeto dadka xoolo-dhaqatada ay heli jireen xilliga roobaadka guga hase yeeshee sanadkan uu dibdhac ku yimid gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Tootoole oo maanta xafiiskiisa shir jiraad ku qabta ayaa sheegay in xaalad nololeed oo liidata ay ka jirta deegaanada Galmudug gaar ahaan deegaanada hoos yimaada magaalada Cadaado wuxuuna ku baaqay in laga soo gaaro caawinaad dadka reer guuraaga ee abaartu saameysay deegaamada degmada Cadaado hoos yimaada qaabkay ku sugan yihiin iyo sida maanta wax yihiin sidaan wada ogsoonahay waxaa lagu jiraa xilli adag oo waqtiga dadka reer miyiga ay yiraahdaan kala dambeed marka roobka xilliga la sugayana ilaahay hadda ma hayno ilaahay weli lama siinin laakiin waxaan ilaahay ka baryaynaa in ilaahay roob khayr qaba u nasiyo ummadda raxmadiisa gacantiisa kala gaarta taas marka inta kaga soo tago waxaan rabaa inaan halkan uga hadlo oon u jeediyo baaq hay'adaha samafalka iyo dhammaan cid kasta oo caawin karta xaaladda degmada Cadaado iyo deegaamada hoos yimaada way adag tahay xilli adag ayay maraysaa roobkii wada ku jiro iyo xooliyo kala dambeeda iyo dadkii aad u dhibaataysan iyo iyadoo markii hore sanadkii hore roobku uu deegaamadan qayb inta badan ba ku yaraa oo meelo yar maahan inta kale uu ku yaraa xaaladii way adkaatay way sii cakrinaatay qayladhaantii waa nagu badatay waxyaabaha markaan dadka reer miyigu wuxuu aad uga cabanayaa biyo la'aan waxa ugu daran hadda biyo la'aanta waaye mideeda kaleeto xoolaha ku nool deegaamadan ama miyiga ku noolaadaan ama magaalada ku noolaadaan markii jidaaladu dhacaan waxaa la sii jiray raashinkii sidoo kale qaali uu noqday waa la gada waayey oo dadkii raashinka way gada waayeen biyihii waa la gada waayey sidoo kale dadkii barakacyaalka ee ku noolaa degmada Cadaado ayaguna sidoo kale qayladhaantoodii kor ayay u kacday xaaladda way adkaatay dadkuna waa isku xiran yahay dadka miyiga degan iyo dadka magaalada degan waa hal nidaam hal system isku xiran yahay marka waxaan leenahay oo aan ka codsanaynaa hay'adaha samafalka nooc kasta yihiin midii keeni karta biyo keeni karta midii raashin keeni karta midii wax kale keeni karta midii wax dhaqaale keeni karta sidoo kale dadka islaamka ayagana waxaan leenahay dadka xaaladooda waa adag tahay dadka hala soo caawiyo oo barnaamijkaas ha laga qayb qaato hay'aduhuna waxaan leeyahay si degdeg ah oo howlgaleen deegaanka arrintiisu waa cuslaatay xaaladdu waa kasii daraysaa haddii weliba inta bishan ka dhiman aan roob la helina qatar abaara iyo macluula qatar loogu jiraa marka waan ka digaynaa waxaan uga sii hordhacaynaa inaan aysan arrintaasi aysan gelin marka waxaan leenahay si degdega deegaamada Cadaado ha loola soo gaaro wax kastoo la awoodo hay'adaha samafalkuna si dhab arrintan ha uga howlgaleen baaqaana si dhab ha u qaateen abaaro ayaa ka jira deegaano hoos yimaada Galmudug waxaana dadku xilligan ay ka cabanayaan in xoolahooda aysan u heli karin daaq iyo biyo waxaana ay soo taraya qayladhaanta ka imaanaysa dadka reer guuraaga maxamed maxamuud oo aadan TV-ga caalamiga Universal Cadaado qaar ka mid ah haweenka gobolka Banaadir ayaa maanta magaalada Muqdisho waxa ay ku soo bandhigeen qaybtii labaad ee taakulan ay u sameynayaan ciidamada xoogga dalka ee ku sugan furimaha dagaalka wariyahayaga Cabdi Ciise ayaa warkan mar kale noo faahfaahinaya haweenka degmooyinka Muqdisho maamulka gobolka Banaadir wasaaradda waxbarashada ayaa iska kaashanaya barnaamijka loogu magac daray rajada shacabka iyo isku xilqaamka dhiirigelinta ciidamada xoogga dalka ee dagaalada kula jira ururka Al-Shabaab haweenka gobolka Banaadir oo ku heesayay suugaan ay ku baraarujinayaan ciidamada ayaa bacaynayay cuntooyinka macmacaanka ee ciidanka lagu taageerayo iyagoona 2 neef oo geel ah biyo lacabo iyo timir ku diyaariyay laanta Yuusuf Alkooneen ee degmada Boondheere gudoomiyaha degmada Boondheere Seynab Yuusuf Weyliye iyo gudoomiyaha ururka haweenka maamulka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamed Jaamac Baarqab ayaa madashaasi ka sheegay in ganacsatada iyo shacabka ay ugu baaqayaan inay ka qayb qaataan taakulaynta ciidamada waxaana ay ku baaqeen in lala shaqeeyo ciidanka amniga ilaahay baa mahadda iska leh ilaahay baa nawaafajiyay in ciidamadeena aaga jira ee baacsanaya sharwadayaasha aan maxaan ku iraahdaa u tabaabushaysanno ka daba mashxaradno waxa maxay ta ka daba dhiibno waxa la yiri gobonnimadu waa geed
ku baxa dhiigga geesiga haddaan wiil Soomaaliyeed u dhimanin gabar Soomaaliyeed ma xaragoonayso qarannimo ma jirayso waxa laga yaabaa iskuulka ilmuhu dhiganayaan inuu yahay iskuul ummadda Soomaaliyeed xoogooda ay ku dhiseen laga qaadanayo lacag askariga ilmihiisana laga bixinayo ayadana ma ogolaanayno waxaan rabnaa inaad ogaatid ilmaha hooyada iyo aabaha caadiga ay dhaleen kuwa ciidamadu inay ka qiimo badan yihiin qof walba oo ciid ku socdo Soomaaliya ayaga noogu qiimo badan ayaga ixtiraam naga mudan ayaga naga mudan inaan karaamayno gudoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Axmed Camir Shaketi ayaa dhankeeda ka hadashay markii labaad oo haweenka degmooyinka gobolka Banaadir iyo maamulka gobolka Banaadir iyo xubno kaleba ay raashin iyo adeegyo kale ay ugu taageerayaan ciidanka xoogga dalka ay ku diyaariyeen magaalada Muqdisho aad ugu faraxsanahay garab istaagiina waxaan kaloo rabaa inaan fursadan uga faa'iideysanaya in bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan inay ku daydaan haweenka Soomaaliyeed haweenka gobolka Banaadir wasaaradaha is soo xilqaamay wasiirka waxbarashada in lagu daydo qaybaha bulshada inay ku daydaan dhiirigelinta ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed u sameynayaan haweenka Soomaaliyeed khaasatan gobolka Banaadir runtii waa tallaabo ku dayasho mudan waana filaynaa inay soo dhaqaaqi doonaan bulshada Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed runtii waxa ku socda isbeddello waaweyn taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa ka gudoomay haweenka gobolka Banaadir taageeradaasi ay u muujiyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed cadawga ummadda Soomaaliyeed haddaan nahay gabdhaha gobolka Banaadir waxaan diyaar u nahay inaan ciidanka garab istaagno aan la difaacno aan la dagaalno aan 24 saac xooggeena iyo waqtigeenaba aan ku bixino sida ciidankeena aan moralka ugu dhisi lahayn aan u garab istaagi lahayn ayagana aysan noqonin kuwa dad la'aan hayso noqdaan kuwa dad sugaayo ku tashanayo ku dhiirisan markuu aaga joogo qalbisan uu ku joogo Cabdicasiis Ibrahim Axmed Okey TV Universal magaalada Muqdisho maamulka degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir ayaa maanta soo saaray digniintii ugu dambeysay oo u jeedinayo ganacsatada waratada ah ee ka ganacsata hareeraha wadooyinka laamiga ee dhexmara degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir sida warkaan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Sakariya Maxamuud Timcade howlgalkan oo ahaa mid lagu baneynayo wadooyinka cariiriga ee dhexmara suuqa degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir ayaa ka bilowday gudaha suuqan subaxnimadii hore ee maanta howlgalkan ayaa ka soo bilowday wadada ka timaada saldhigga booliiska degmada Xamarweyne waxaana uu ahaa mid lagu qaadayo goobaha ganacsiga sharci darrada oo laga dhisay hareeraha wadooyinka laamigan maamulka degmada saraakiisha ciidanka iyo taliyaha saldhigga booliiska degmada Xamarweyne ayaa tallaabadan ku tilmaamay inay tahay mid la doonaya sidii loo yareyn lahaa dhibaatooyinka dadka iyo gaadiidka ay ku qabaan isticmaalka wadooyinkan oo ah kuwa aad u mashquul badan oo cariiri ah gudoomiyaha degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir Cabduqaadir Maxamed Cabduqaadir ayaa markii howlgalkan uu soo dhamaaday warbaahinta ugu warbixiyay waxaan howlgal ka sameynay degmada Xamarweyne oo aan ku furaynay wadooyinkii xirxirnaa waxaan hadda furnay qayb ka mid ah wadooyinkaasi wayna socon doonaan qaybaha kale oo harsan wadooyinka hadda aan furnay waxaa ka mid ah wadada soo gasha wadada saldhigga ee soo aada ilaa Bacadlaha sidaad u jeedaan wadooyinka hadda dadka si caadi ah ay isku dhaafayaan baabuurkana caadi ayuu u mari karaa sidoo kale waxaan ganacsatada aan ka kicinay wadooyinkaasi iyo kuwa kale hadda aan ka kicin doono kormeer waxaan ku tagnay sidoo kale suuqa weyn ee Bacadlaha waxaan aragnay in suuqa weyn uu yahay suuqa kaliya ee dadkaas lagu soo xarayn karo arintaasina waxaa go'aan aan la wadaagi doonaa duqa magaalada Muqdisho si uu wareegto ugu soo saaro sidii dadka ku ganacsada wadooyinka ama bartamaha laamiga aan uga leexino halkaasna aan ugu rarno taliyaha qaybta nabadgelyada wadooyinka Generaal Maxamed Yuusuf Cumar Madaale ayaa ganacsatada ugu digay inay jibiyaan amarka maamulka degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho shaqo fiican baa la qabtay waxaan ugu baaqaynaa dadka waratada ah in ay wadooyinka baneeyaan gaadiidka loogu talagalay ciddii baneyn weyda amarka u hoggaansami weyda waxay helayaan tallaabo sharci ah berri waxaan soo gelinaynaa magaalada ciidanka deegaanka ilaalada deegaanka sanduuqyada oo dhanna waa la qaadi doonaa meel dawladdu ugu talagashaa la geyn doonaa hantidiinna ilaashada wadooyinka baneeya booliiska iyo degmadana gacan ku siiya sidii ay u furi lahaayeen wadooyinka idinkay dana idinku jirtaa meel haddii dabdhaco laydiin soo mara ma leh dariiqyada ha la banneeyo
tallaabadan ayaa ku soo beegmayso iyada oo maamulka degmada Xamarweyne uu sheegay inaana loo dulqaadan doonin ganacsiga sharci darrada ah ee hareeraha wadooyinka laga dhiso. waxaana uu sheegay in ganacsatada tallaabo laga qaadi doono haddii amarka maamulka degmada uu u hoggaansami waayaan. Zakariya Maxamuud Timcade, Universal TV, Muqdisho. iyadoo ay fooda nagu soo hayso waajibaadka gudashada fadliga bisha barakaysan ee Ramadaan ah iyo haddana kulan ay isugu yimaadeen xubnaha mas'uuliyiinta guddiga amniga dowlad goboleedka Jubbaland waxay ka soo saareen qodobo dhowr ah oo lagu xadidayo adkeynta amniga deegaanadaasi Jubbaland inta lagu guda jiro bisha Ramadaan ee nagu soo beegan. Mas'uud Cabdullaahi Aadan ayaa ka soo warramay Kismaayo. kulan ay maanta yeesheen guddiga amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxaa laga hadlay adkeynta amniga, xoojinta dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab iyo diyaar garowga bisha barakaysan ee Ramadaan. guddiga amniga ayaa inta uu kulanku socday amaro cusub soo saaray kuwaas oo la xiriirta gawaarida aan sharciga lahayn sida sharciga lahaanshada, taarikada iyo warqadda wadamarsiinta, iyo sidoo kale in wada walba uu leeyahay kaarka aqoonsiga gaariga ama laysanka. afhayeenka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland Cabdinuur Ibraahim Xuseen ayaa kulanka kadib warbaahinta la hadlay, waxaana dhammaan dadka wadayaasha gaadiidka ah iyo shacabka gaadiidka laba lagula dardaarmay in ay waajib ku tahay qaadashada taarikada. qodobka koowaad dhammaan gaadiidleyda ku nool Jubbaland gaar ahaan reer Kismaayo waxaa la farayaa in ay qaataan warqadaha sharciga ah ee gaadiidka, taas oo lagu xaqiijinayo mulkiyadda gaadiidka si loo sugo amniga dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo. ciidamada dowlad goboleedka qodobka labaad ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland loo idmaday kala shaqaynta wasaaradda gaadiidka sharciyeynta baabuurta waa in ay gutaan waajibaadkooda shaqo iyaga oo u dhimrinayo bulshada ay u shaqaynayaan. ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa federaalka ee ku sugan magaalada Kismaayo iyo dhammaan ciidamada staafka u ah madaxda waxaa la farayaa in ay u dhagan nuglaadaan awaamirta ka soo baxaysa dowlad goboleedka Jubbaland oo ayna sharciyeystaan baabuurta ay gaarka u leeyihiin. gaariga marka cid kasta hadday taarga la'aan ama warqad la'aan ay gaariga soo kaxaysato waxaa fududaanaysa in cadowga ay kusoo dhex dhuntaan, shacabkii lagu dhibaateeya ayaa suuragalayso. si aysan u suuragalin oo ayaga lafahooda ay u nabad qabaan oo ay nabad ugu noolaadaan waxaan kula dardaarmaynaa ku adkaynayna inay gawaarida sharciyeystaan. sharcigana ayaga ayuu muhiim u yahay, ayaga ayuu wax u tarayaan kugu hore amniga ka soka iyo dowladda mas-uuliyadda ka saareen gaarigaaga inaad adiga mulkiyadiisa cadaysato adiga ayay ku anfacaystaan. marka saa darteed waxaan kula dardaarmaynaa ku boorinaynaa inay qaataan awaamirta ka soo baxay dowlad goboleedka Jubbaland oo ay u hoggaansamaan gawaaridana ay sharciyeystaan. gaarigii aan sharciyeystaan ee maanta kadib u arkay magaalada Kismaayo insha Allah bidnaa kariim waxaan rajaynayaa in ay wasaaradda gaadiidka iyo cidda u xilsaareed ay sharciga horgeyn doonto. laakiin annaga ka wasaaradda amni ahaan waxaa naga qusay oo kale gaadiidka inuu sharci leeyahay tixraac uu leeyahay ayaa naga qusayso ta aan ka hadlayna gaariga inuu tixraac leeyahay aan u tixraaci karno meeshii laga leeyahay cidda leh ayaa lagu talagalay. taa ayaan ka hadlaynaa tan laakiin kala garashada iyo maxaa u kala astaysan wasaaradda gaadiidka ayay. guddiga amniga ayaa sidoo kale ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ku amaanay howlgalka joogtada ay kula jiraan ururka Al-Shabaab, ayagoo sheegay in magaalooyinka kala duwan ee Jubbaland la adkeyn doono amnigooda maadaama ay bisha barakaysan ee Ramadaan ay fooda nagu soo hayso. Mas'uud Cabdullaahi Aadan, TV Universal, magaalada Kismaayo. horyayaga Mas'uud aad buu maasan yahay. markana haddii aanu eegno gobolka Sool, wararka ka imaanaya koonfurta gobolkaasi ayaa sheegaya in wasiirka biyaha Somaliland uu socdaal ku soo kala bixiyay deegaano ka tirsan koonfurta gobolkaasi sida uu ku soo warramayo wariyahayaga Qadar Rigaax. wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha mudane Salebaan Yuusuf Cali Koore ayaa saaka iriirtii waa bari gaadhay deegaano ka tirsan koonfurta gobolka Sool sida degmooyinka Kalabaydh, Dharkeyn, Dabataag, waxaana si weyn loogu soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha guud ahaan deegaamadaasi. dhanka kale wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha ayaa markii uu gaadhay deegaamadaasi waxa uu xadhiga ka taray xarun lagu dalyeero hooyada iyo dhallaanka oo ay hirgeliyeen dadka deegaankaasi. wuxuu u socday inuu arko baahida meesha ka jirtay biyood, waana ula tagnay, waana naga ajiibay inuu nalana soo arko. wuxuu arknaa dee baahida wax ka qabto. iyo waftiga ballaaran ee la socda aad iyo aad baan ugu faraxsannahay imaadkiina aad timaadeen ee soo ajiibteen xafladan iyo tii ahayd mataqaanaa biyaha iyo baahida ka jirta Dharkeyn.
ama deegaankanba. gabagabadiina waxaa halkaa ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha isagoo u sheegay dadweynaha deegaankaasi yimaada safarkiisana inay ahayd si uu la socdo xaaladda biyaanaaneed ee ka jirta deegaankaasi waxaana uu sheegay inuu wax weyn ka qaban doono. waxaan sharaf iyo karaamo iyo ciisi ugu hayaa dhammaan odayaasha deegaanka iyo dhammaan dadka sharafta leh ee dharkayn. guud ahaan haddaan wax yar uun u noqdo waa run dowladda dadka iyo xukuumadda maanta dalka joogta oo aan ka mid ahay golaheeda wasiirada waajibaad baa ka saaran ummaddu inay wixii baahiya ee jirta laga qabto wixii laga awoodo. way u baahan tahay dibudhis iyo kabi in ay dib uga kabato magaaladan iyo magaalooyin la midaba inay ka kabtaan dhibtii gaadhay oo dharka inay ugu horeyso. guud ahaan wasaaradda biyaha waxaan isleeyahay wixii awooda waxaan siin doonaa 2 tuulo oo aan soo arkay 2 magaalo 2 degmo oo dharkayn iyo agol janno. ummaddu markay wax wada leedahay 2 waajibaad baa jira. waajibaadna dowladda leh oo calanka iyo ciidda iyo dowladnimada in la ilaaliyo qofka muwaadinka ah xaq baa loogu leeyahay. waa Khadar Faarax Khadar Gax wararka telefishinka Universal magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. wararka ka imaanaya magaalada Nairobi caasimadda wadanka Kenya gaar ahaan xaafadda Islii waxa ay sheegayaan in halkaas lagu qabtay xaflad shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiinayay ku dhawaad 10 arday ah oo baratay xifdinta Qur'aanka Kariimka. Cabdiwali Xuseen Tawakal ayaa warkan ka soo diray Nairobi. بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. xafladan oo ahayd mid abaalmarno lagu guddoonsiinayay ilaa 8 arday oo barashada Quraanka Kariimka ka dhameysay markaska Muscab bin Ubayr ee xaafadda Islii magaalada Nairobi waxaa ka qayb galay culamaa u diin, waalidiin iyo marti sharaf kale oo lagu casumay. qaar ka mid ah culimadii iyo waalidiintii ka qayb gashay xafladda lagu maamuusay ardayda dhameysatay barashada Quraanka Kariimka ee markaska Muscab bin Ubayr isla markaana abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiinayo madasha ka hadlaya ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay caruurta oo la baro Quraanka Kariimka iyagoona u mahad celiyo maamulka iyo macallimiinta markaska. haddii aad aragtid waladkaadii adigu Ilaahay ku siiyay asagoo dadaalayo Qur'aankii ku dadaalayo imaanshihii dugsiga asagoo ku dadaalayo xifdiga Qur'aanka asagoo ku dadaalayo salaada asagoo ku dadaalayo waa inuu wax uu ku farxo asagana aasiisaan. wax ka wanaagsan oo ka weynin badan xaqiiqada markaan ka hadlayna ma jirto inuu qofka Qur'aanka xifdiyo. haddii marka ilmahaadii uu Qur'aanka dhameeyay oo uu dadaalkaasi sameeyay dhowr sano intuu u dulqaatay waa inaad hadiyad qiimo badan aad siisaa adiga waalidka ah si niyadiisana aad u kabtid himadiisana aad u koryeeshid. maxaa yeelay wuxuu noqonayaa qofkaasi dareemayaa in wax aad u qiimo badan oo hantay buu dareemayaa waalidkana uu ku gacan siinayo markii shayga qofka loo amaano shayga qofka hadiyad lagu siiyo shayga qofka bini aadamka loo macaaneeyo macaan buu noqdaa. laakiin haddaan u macaaneyn weyno hadiyad aan ku siin weyno niyadooda aan ku dhisi weyno wuxuu iska noqonayaa qofkii qof iska himo jaban ama niyad jaban. saysa marka taa u dhicin aan ku dadaalna kulligeen waxaan mar labaad iyo mar saddexaad awalan Ilaahay u mahadinayaa waxaan kaloo u mahadinayaa walaalaha waalidiinta dhammaan iyo macallimiinta hawshan ka soo shaqeeyay. marka wax kaloo leeyahay macallimiinta hal sharfo macallimiinta hal weynayo macallin markii lagu dhahayo macallin wuxuu sugay inuu nabi noqdo. maanta macallin 2,000 waa siinaa markii ardayga loo diro. intaasi kadib maamulaha markaska Muscab bin Ubayr ee xaafadda Islii Xasan Ibraahim Ismaaciil oo xafladda ka hadlaya ka sheekeeyay marxaladaha ay soo mareen ardayda dhameysatay barashada Quraanka Kariimka iyo markaska. maanta waxaan soo imaan halkaan xaflad qalin jibin ah Quraanka Kariimka ku saabsan waxay ugu weynaa oo la maamuusi lahaa weeye inaan loo arkin waxaan baranay horta wax easy inay yihiin ama wax fudud inay yihiin waa kitaabkii Ilaahay oo cid walba aan la siin kale lagu helo alla bari inaad Ilaahay ku xirnaato oo mar kasta Ilaahay bari oo Ilaahay uu fududeeyo aad tiraahdo
iyo baarinimo waalidkaadana aad baari u noqotid macalinkaagana aad baari u noqotid lacag baana lagu helin xoog baana lagu helin wax lagu helayo ma jirto waayo haddii wax awood iyo lacag lagu helayo ay tahay waxaa la siin lahaa rag badan ayaa la siin lahaa waxay uu soo degaya nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa qurayshtii waxay tiri waad ogeedeen haddii micnaha qur-aanku uu xaq yahay ama diintan ay xaq tahay maxaa ragga waaweyn oo akaabirta oo magaalada laga yaqaano oo ee quraysh madaxdeeda maxaa looga soo dejin waayay dhehen waryahayaga cabduuli tawakal aad buu mahadsan yahay warbixintaasi nooga soo diray magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya isuduwaha cusub ee wasaaradda caafimaadka somalilan ee dhowaa loogu magacaabay gobolka sool ayaa maanta magaalada laascaanood waxa uu kula wareegay xilkaasi cusub ee loo soo magacaabay mar kale qadar rigaax ayaa ka soo warramay laascaano munaasabad xilka loogu kala wareejinayo isuduwihii hore ee wasaaradda caafimaadka dr bile xaaji maxamuud cali iyo weliba isuduwaha cusub ee wasaaradda caafimaadka dr maxamuud xaaji khaliif miiraaf ayaa ka qabsoontay howlka wasaaradda caafimaadka ee magaalada laascaanood waxaana kasoo qayb galay maamulka gobolka sool kan degmooyinka laascaanood iyo xaysimo cuqaal waxgarad dhalinyaro qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ugu horreyntiina waxaa halkaa ka hadlay cuqaal iyo waxgarad kasoo qayb galay munaasabadan ummadda bulshada gobolka ku nool oo dhan mid miyi jooga mid magaalo jooga mid tuulo jooga mid halka jooga mid akhtarka ku jira dee waxay la tahay xilka ummadda oo dhan baad la wareegtay xafladan ballaadhan ee isuduwihii hore iyo isuduwaha cusub xilka lagu kala wareejinayo oo sida quruxda badan looga soo qayb galayna waan idin mahadnaqayaa isuduwihii hore oo wasaaradda caafimaadka bile xaaji maxamuud waa nin tabarna leh howlgarna ah ceeb kalama tegin sharaf buu kala tegay aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa bilow abti adiguna dee soo dhawow runtiisi dirdaarinkii ay ku siiyeen daakir iyo darawal iyo sheekh yuusuf baa kugu filan oo wax la taaban karo runtii oo raada oo caafimaad ka qabtay marka laga tago bisha cas daacadna runtii oo shaqadiisa daacad ah shaqaalihiina caafimaadka waxaa waajib idinku ah أنا إذا كبرنا إن أتصدق هذا ولا شخصا. محمود خليف فرح مراف. وحنا هاي محمودو. أنا العقها جعلانة. وكو. رابع. خالد هذا وقال لكن خالد قف كلها جري. صدح. واتكلم سيب بندي كوي هرو. حوق بدنا والله وانا عافات دليرنا وته. ماشي أنا واحد بدنا قولنا هذا وضع دلير تدخلني. dhankiisa waxaa halkaa ka hadlay isuduwihii hore ee wasaaradda caafimaadka dr bile xaaji maxamuud cali waxaa laga yaabee berri ka maalin in maxamuud tago oo mid kale yimaado inaan soo noqdo oo mid kale qofka kaa kale maxamuud ka bedelay inaan ka bedelo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa sidaad ila soo shaqayseen ee sharafta lahaa shaqaalaha caafimaadka hay-adaha oo aanay ilaa weyn bisha cas hay-adda bisha cas hay-adda ARC labada hay-adeed ee ii ahaa udubdhaxaadka bay ahaayeen aniga gabagabadiina waxaa halkaa ka hadlay isuduwaha cusub ee wasaaradda caafimaadka dr maxamuud xaaji khaliif miiraaf ma ihi anigu qof halakan ku cusub waxaan ka mid ahay shaqaalaha caafimaadka waxaan ka mid ahaa mas-uuliyiintii gobolka ee caafimaadka waxaan ahaa xidhiidhiyaha caafimaadka aasaasiga ah ee gobolka halka aan codsanayaa oo bulshaweynta gobolka sool gobolka xaysimo iyo dhammaan deegaanka baan ka codsanayaa waxa weeye waa hal eray oo ah cadaaladda ay farteen waan qaadanayaa idinkana waxaan idinka codsanayaa inaad ii cadaalad samaysaan sidoo kalena dr bile xaaji maxamuud cali isuduwihii hore ee wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa shahaado sharaf guddoonsiiyey qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda caafimaadka waa khadar faarax khadar rigax wararka telefishinka universal jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa maanta ka qayb galay soo dhaweyn ballaaran oo halkaasi lagu sameeyay malaaq cali maxamed wehliye oo gaaray magaalada Cape Town sida uu ku soo waramayo wariyahayaga xasan kaafi maxamed shire oo warkan noo soo diray wafti ka socday dawladda hoose oo uu ka mid yahay malaaq cali maxamed wehliye ayaa si heer sare ah loogu soo dhaweeyay garoonka dayuuradaha ee magaalada Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika waxaan soo dhaweynaynaa malaaqayna weyn aan aad u jecelnahay oo magaciisa heeno malaaq cali malaaq maxamed ayaan maanta waxaan ku soo dhaweynaynaa magaalada Cape Town waa dhaqan oo waa duubabka kamida Soomaaliyeed inaan soo dhaweyno xaq uu noogu lahay waxaana gudanay wixii annagana la ka rabay
akhyaarta soo dhaweysay waxaan leenahay waa mahadsan yihiin boqolkiiba boqol malaaqayna sharafta leh ku soo dhawow Kipton welcome ayaa ku leenahay waxaan leenahay inagoo Soomaaliyahan marka hore leenahay welcome to Kipton saasaan leenahay ku soo dhawow malaaq waxaan soo dhaweynaynaa insha Allah walaaladeen malaaqa iyo ninka la yiraahdo Yusuf oo yani inooga yimid wadankeeni hooyo waxaan leenahay hadii la hayra isku wada ujeedaan nahay duub Soomaaliyeed soo dhaweynay midkii kale bariiti ma soo dhaweynayna insha Allah soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada maxaba iyo walaaltinimo ku soo dhawaada diiran aad baan idin soo dhaweynaynaa waxaad u timaadeen walaalihiin oo idin jecel maanta oo dhan idin sugahayay malaaqa oo goobta ka hadlay ayaa u mahad celiyay jaaliyadda Soomaaliyeed isagoona sheegay inuu aad uga xun yahay dhibaatada loo geysto ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Koonfur Afrika dhammaan marti sharaf qiimaha badan oo maanta halka isku yimid maanta waa maalin qiimo badan oo aad iyo aad u macnaa u faraxsanahay waa maalin bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Cape Town waxa aad iyo aad u soo dhaweynaa aad u faraxsanahay soo dhaweynta qiimaha farax badan la ee noo sameeyeen meesha aad ku nooshiin iyo halka joogtaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka barinaynaa inuu idinku badbaadiyo dhibaatooyinka faraha badan la oo maalin kasta ay dhacdaan ka dhageysanana waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed waxa macnaha ahaan ina la qaybsano dhibaatada iyo dhibka iyo ganacsatada Soomaaliyeed halka ku nool dhibaatooyinka matqala markasta meediyaha aan ka maqalna yaa waxaan rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed in la qaybsano xanuunka haya anagana waa idin dhibaatadaas in idin la qaybsano in idin mahad celino in idin dhiirigelino agaasimaha xiriirka dadweynaha ee gobolka Banaadir Yusuf Umar ayaa isna dhankiisa ka mahad celiyay sida diiran ee loogu soo dhaweeyay dalkani Koonfur Afrika dhammaan jaaliyadda South Africa gaar ahaan Cape Town waxaan uga mahad celinaynaa sida diiran ay noogu soo dhaweeyeen maanta halkaan waxaan hubaa in ay yihiin dad isku xiran oo had iyo jeerba iska warqabo waxaan Ilaahay uga baryaynaa in dhibaatooyinka markasta halkan ka dhaco oo muwaadiniinta Soomaaliyeed soo gaaro oo ugu dambeeyay dhibaatadii ka dhacday Straan iyo arealkeeda in Ilaahay culayskaas naga dul qaado Xasan Kaafi Maxamed Shire telefishinka caalamiga Universal magaalada Cape Town warkii caalamka oo aad kala socoteen telefishinka Universal xaruntiisa magaalada Muqdisho caawa nageynta waa 12 bisha Abriil sanadka 2019 warka waxa idin soo jeedinaya anigoo ah Cumar Maxamed Soomaan tan iyo kulan dambe aad u ibraal ka noqdo waxaan ku dhaafinaa sidaa iyo nabadgelyo